السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan idin tuso sida loo isticmaalo maxaa la yidhaahdaa Linux maxaa la yidhahdaa Linux server system. Linux waxa weeyaan waa operating system oo sida Windows ay operating system u tahay Macna uu yahay operating system ayuu maxay ahayd operating system. marka haddii aad Windows استعماشد ama Mac operating system استعماشد Linux server sideed maaragtay aad ku isticmaali kartaa ama aad ku bilaabi kartaa. marka waxaad u baahan tahay marka koowaad waxaan u baahannahay waxaa la yidhahdaa virtual box waxa weeyaan wuxuu kuu sahlayaa inaad maaragtay inaad operating system kale ku dul isticmaashid. ka soo qaad haddaad Windows isticmaali jirtay oo kale ood rabtid Linux inaad asagana isticmaashid. Linux sababta waxaa la ama operating system kale haddaad rabtid inaad isticmaashid oo kale waxaad u baahan tahay inaad virtual box ama wax lamid ah aad soo dejisato kuwaasoo yacni aad operating systemkii kale aad si gaasti ahaan ah aad kii kale uga garab isticmaali karayso. marka waxaan google garaynaynaa virtual box and google dhahnaa marka kaas ayaan ku dhufanaynaa virtualbox.org ayaan ku dhufanaynaa. kabacdi waxaan ku dhufanaynaa meeshan weyn downloadkaas ayaan ku dhufanaynaa. download ayaan dhahaynaa. kadib meeshan ayaa kolba operating system aad isticmaalaysid hadduu Windows yahay ama hadduu Windows ayaan isticmaalayaa marka Windowska ayaan ku dhufanaynaa. kadib wuxuu noo bilaabay downloadka ayuu noo bilaabay socdaa iska sugaynaa. marka Linux oo kale wuxuu ku fiican yahay waxaa laga yaabaa Windowsku programyo una lahayn oo kale haddii aad rabtid inaad isticmaashid oo kale ayaad habkan samaynaysaa ama Macos oo kale programyo ay leeyihiin oo kale oona Windows lahayn oo kale haddaad rabtid inaad isticmaashid qaabkan ayaad isula isticmaali kartaa. marka aan ku dhufano soo baxay u dhameeyey. next ayaan wadaynaa kabacdi install ayaan dhahaynaa. markuu noo install garaynayaa halkana waxaan leeyahay yes. marka virtual box markaan soo download garaysano waxaan u baahannahay Linux operating system ayaan u baahannahay because Linux wuxuu leeyahay distribution badan. marka ka ugu wanaagsan ee dadku badanaa ku bilaabaan waa Ubuntu. marka inagu Ubuntu ayaan isticmaali doonaa. downloadka waqti yar ayuu qaadanayaa laakiin iska sugaynaa. kadib finish ayaan leenahay wuxuu dhameeyey installationkii. marka hadda waan dhamaystiray virtual boxi waan soo download garaysanay. marka waxaan samaynaynaa Ubuntu ayaan soo download garaysanaynaa. waxaan ku qorayaa meeshan
website kooda waxaa weeyaan ubuntu.com. markaas ayaan galaynaa. okay marka waxaan ku dhufanaynaa download ayaan ku dhufanaynaa. kabacdi waxaan ku dhufanaynaa ubuntu desktopka ayaan ku dhufanaynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan idin tuso sida loo isticmaalo maxaa la yiraahdaa Linux Linux server system. Linux waxa weeyaan waa operating system oo sida Windows ay operating system tahay. Macna uu yahay operating system ayuu maxay yahay operating system. marka haddii aad systemka Windows isticmaashid ama Mac operating system isticmaashid Linux server sideed maaragtay aad ku isticmaali kartaa ama aad ku bilaabi kartaa. marka waxaad u baahan tahay marka koowaad waxaan u baahannahay waxaa la yiraahdaa virtual box waxa weeyaan wuxuu kuu sahlayaa inaad maaragtay inaad operating system kale ku dul isticmaashid. ka soo qaad haddaad Windows isticmaali jirtay oo kale ood rabtid Linux inaad asagana isticmaashid. Linux sababta waxaa la ama operating system kale haddaad rabtid inaad isticmaashid oo kale waxaad u baahan tahay inaad virtual box ama wax lamid ah aad soo dejisato kuwaasoo yacni aad operating systemkii kale aad si gaasti ahaan ah aad kii kale uga garab isticmaali karayso. marka waxaan google garaynaynaa virtual box and google dhahnaa. marka kaas ayaan ku dhufanaynaa virtualbox.org ga ayaan ku dhufanaynaa. kabacdi waxaan ku dhufanaynaa calaamation weyn download kaas ayaan ku dhufanaynaa. download ayaan dhahaynaa. kadib meeshan ayaa kolba operating system waad isticmaalaysid. hadduu Windows yahay ama hadda Windows ayaan isticmaalayaa marka Windows ayaan ku dhufanaynaa. kadib wuxuu noo bilaabay downloadka ayuu noo bilaabay socdaa. iska sugaynaa. marka Linux oo kale wuxuu ku fiican yahay waxaa laga yaabaa Windows ku programyo una lahayn oo kale haddii aad rabtid inaad isticmaashid oo kale ayaad habkan samaynaysaa. ama macOS oo kale programyo ay leeyihiin oo kale una Windows lahayn oo kale haddaad rabtid inaad isticmaashid qaabkan ayaad isula isticmaali kartaa. marka aan ku dhufano soo baxay u dhameeyey.
next ama wadayna kabacdi install ayaan dhahaynaa marka uu noo install garaynaya halkana waxaan leeyahay yes marka virtual box markaan soo download garaysano waxaan u baahannahay Linux operating system ayaan u baahannahay because Linux wuxuu leeyahay distribution badan marka ka ugu wanaagsan ee dadku badanaa ku bilaabaan waa Ubuntu marka inagu Ubuntu ayaan isticmaali doonaa download waqti yar ayuu qaadanaya laakiin iska sugayna kadib finish ayaan leenahay wuxuu dhameeyay installationkii marka hadda waan dhamaystiray virtual boxi waan soo download garaysanay marka waxaan sameynaynaa haddana waxaan sameynaynaa Ubuntu ayaan soo download garaysanaynaa waxaan buqanayaa meeshan website-kooda waxaa weeyaan ubuntu.com markaas ayaan galaynaa okay marka waxaan ku dhufanaynaa download ayaan ku dhufanaynaa kabacdi waxaan ku dhufanaynaa Ubuntu desktop-ka ayaan ku dhufanaynaa virtual box ayaan furaynaa kadib waxaan leenahay new ayaan leenahay kadib magaca ayaanu bixinaynaa waxaan leenahay host oo kale magaca arabtida ayaad bixin kartaa halkan waxaan ka dhigaynaa Linux ayaan ka dhigaynaa meesha type-ka version-kana waxaan ka dhigaynaa 64 bit ayaan anigu isticmaalaya oo Windows marka 64 bit ayaan ka dhigaynaa kan ka dhig Oracle 64 bitkaas keeda kabacdi waxaan leenahay next halkana waxaa weeyaan memory-ga ama inta RAM aad rabtid inaad ka isticmaasho computerkaaga oo siisid maxay ahayd Linux server-ka ayaad dooranaysaa marka anu hadda waxaan haystaa 7 wax weeyaan marka waa inaad isticmaalin wax ka badan half marka waxaan ka dhigayaa 2 ayaan ka dhigayaa kaas ayaan ku daynayaa 2 gigabytes ayaan siinayaa maxay ahayd operating system-ka kadib next ayaan leenahay
kadibna halkana hard diskigana midka uu noo doortay oo ah create virtual hard disk baan ku daynaynaa. create ayaan leenahay markaas. hard disk file type noocana kan ugu horeeya imageka uu la socdo ayaan ku daynaynaa. next ayaan leenahay markaas. kana waxaan ka dhiganaa isagana fixed size storage of physical hard disk. kana dynamic allocated ayaan ku daynaynaa. next ayaan leenahay. halkana waxaa weeyaan wuxuu file location and size 12 gigabyte ayuu siiyey, marka 10 ayaan siinaya halkan. tenkaas ayaan ku daynaynaa. marka waxaan leenahay create. okay, kadib waxaan leenahay waxaan sameyneynaa maxaa la yidhaahdaa start ayaan leenahay. startiga ayaan ku furaynaa. marka installationkii hadda dhamaaday. kadib waxaan leenahay labadana kusoo baxaya. luqadda waxaan dooranaynaa English weeyaan. marka try ubuntu iyo install ubuntu buu ku leeyahay. marka install ubuntu ayaan dhahaynaa. waan install garaynaynaa. kadib waxaan leenahay continue ayaan ku dhufanaynaa. halkan wuxuu ku leeyahay updates and others of the what apps would you like. marka kan intuu noo install garaynayo waxaan update iyo wixii baan sii sameyneynaa. boxyada yaryar ayaan labada download iyo install third party iyo normal installation intaba tig ayaan siineynaa. marka continue ayaan leenahay.
kadib waxaan leenahay kana waxaan ku deenaynaa res disk install ubuntu marka waxaan leenahay install now. Continuous now.